waayo oo bilo maanta waxaa ii wadaa qiso aad u murugo badan oo ka mid ah qisooyinka ka dhaca waxa weeyaan caalamka siiba ku dhex dhaca waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed. Qisadu waa maxay? Waa sida tahay. Qisadu waxay ka hadlaysaa waxa weeyaan waa gabadh iyo ninkeedii amba hooyo iyo aabbo saa u taqaanaan oo waxa weeyaan isqabay. Qisadu waxay leedahay sida tan kale leedahay. Waxaan qisadan u soo qaadanayaa amba uga sheekeynayaa inaynu bal yar bilicsano amba aynu yar jaleecno waxyaalihii hore u dhici jiray amba dhacay amba mar kasta dhaca oo imika laakiin inagu yahay. Waxa sida hore caadaynu ahayd Soomaalida dadkii hore qofku markuu xanuunsado amba uu soo dhaco waynu jeli jirnay. sida imika waa dhacda in baad dadka wixii imika qofkii markuu xanuusto faleema lagu gudayaa waxa weeyaan dhakhtarkaas soo jiifaya waa dhakhaatiir hal dhakhtar qayrada laga ilaalinayaa buuqa laga ilaalinayaa. Laakiin waqtigii hore markay dhakhaatiirtu yaraayeen waxa la sameyn jiray waxa weeye qofka in guriga lagu hayo dhakhtar yar baa la geeyay markaas waxa la dhahayaa dhakhtarka waa lagala quustaa qofka la dhahayaa kadib dhinacaas lagu jaraya hareeraan ka fadhiisanayna ilaahay oo caafi alla u bukaadaas u burnaa haddaynu nahay. markaas laga yaabaa qofkan uu bukaa inkastoo haddana dad waxa weeyaan ilaa qofku mar hadda la soo doono uu dhimanayaaye adigu wadaad baa ninkeygii xanuun ku dhacay sheekadaynu gelayna. kadib markuu xanuunku ku dhacay ayaa meel kasta la mariyey. kadib marka meel kasta la mariyey waxa ku adkaatay markaa noloshiiba adkaatay oo dumarkii hore sidii wada ogeyn waxaa la aaminsanaa ma dhaqayno ahaa reerka dhan waxa ka mas-uula masriif hadday noqoto biil hadday noqoto wax kasta hadday noqoto waxa ka mas-uula allahuma salli calaa maxamed waxa weeye waa ninka oo caawa hadduu seexdo aan de waxba guriga la sii dhigin ama aan nin hadduu seexdo oo Soomaaliya de waxa weeye dhaqaniyo qofkaas ducaa beri seexdo maan seexdo waa nin biilkii beri la cun lahaa dee sii dhigay. ninka la iskama seexan jirin mana seexda sida caadi maahay. oo imika dee waxaad arkaysaa gabadh hadduuna ninku shaqeynaya hadduuna biladeedo dhinacan ka helinaysa waa isbedelka iyo daruufaha waxa weeye waxyaalahaasa dee dhacay oo gabadhu inay xitaa shaqayso beriga waxay ku noqonaysay xataa wax yaroo ceeb amaan lagu qabin dhaqaniya Soomaaliya waa iska garanaysaa ma garata. adigu wadaadkii baa soo dhacay. gabadhu markaas odayga amba ninkeega wax awlaada markaa uma hayso. noloshiiba markaa ku cayidhi noqotay in gaastii dee maalin walba reerkooga imanayo midda biil kala soo raagayo midda markuu dee tusaale ahaan odaygaa uu ku biilinaya amba waxa weeyaan wax gacanta lagaa gooliyo waxyaalo badan baa dee baahi badan baa daboolmaysa. laakiin markii gacan bini-aadamku lagu soo mariyo waa mushkilad. tusaale ahaan oo kale imika haddaad aad shaqayn oo naagtaada walaalkaa gudhaanaa kuu biilinayaan baa hooyada kutaadana kuu biilinaya tusaale ahaan oo kale waxba ma noqonaysa iyada waxaas waxa u noqonaysa haddaad 10 shilineed adigu siiso amba 5 eereed adigu siiso ayaa iyada waxba ma garata. adigu wadaadkii waa culusaaday xanuunkiisii aad buu culusaaday. ilaahay bay disatay heebarkaa gabadhii waa iska dumare waxaa jiray waxaan u baahanahay ninkan anigu ma hayn karo waayo anigu intuu caafimaadayo haya hooyadii waa joogtaa aabihii waa joogaa waxa weeye ninkan haya. aniguna reerkayagii iyo xaafadeedii ayaan iska tegaya. waxaa lay ninna dadkiisu ma dhigo. okay bay tiri ninka hooyadii iyo walaaladii iyo aabihii haya anakaa haynayna adiguna intuu caafimaadayo hooyoy gurigii hooyada iska tag. shaw ninkan waa xanuunsanaya laakiin qofku markuu xanuunsanayo wax kaste si kastuu qofku u sakaraadayo hadduu dareenkiisu joogo waxaa laga duleeyo u garanayaa waxaa laga duldhahayo u garanayaa
wax badan buu garanaya. Ninkanna dee waxay gabadhu aamintay xaggaas iyo waxa weeyaan in waxa weeyaan geerida ugu jeedo ay aamintay. Ilaahay bay tiisatay. Laakiin maxaa dhacay? Gabadhii tagtay. Odaygii xanuunsanayay ama ninkii xanuunsanayay la soo qaad gurigoogii la gee oo guriga ku dhashay amba uu ka bilaabmay amba uu kusoo barbaaray dib loogu celi daaqad loo fur gadaal iyo hore iyo dibadba loo rushay meel cidlaa saa loo dhig. waa iska garanaa Soomaali baan iska quraafaadlayaal baa iska jiro. waxaa la yidhi islaan yar baa soo booqatay markaasa waxay tiri iday saa agta tiri na waxbaa haya sixiriya waxbaa haya. markaa maxaynu sameynaa? hooyadu waa cajib. hooyadeed bay la washay islaantii kale saaxiibadii la sheekaysanaysaa hooyadii bay la sheekaysanaysaa. markaasay tiri naninkan aynankaaga waa lagaa sixray orod wadaad hebel u yeedh. aba yaroo iska quraafaadaayo meel iska joogo oo maanta hadduu waa xelad beryaanayna waxa weye dadka qardhaasaha u dhigo oo waxaa ku shaqaysta unbaa waxa weye gaari xumaar lagu soo qaado gurigii la keeno. waka iskala bixiyey. ninkiina dhinacaas soo jiifaa saasuu eegayaa waa la jalayaa war waxba uma hayo. dee waxa weeyaan xaalad adag baa ku jira. kadib kitaab ula kala baxay uu isagu qortay dee oo aan qur-aan u ekayn aan waxa weeyaan adigu haddana qur-aan u yar eeg adigu dee cilmigu waa bade walba cilmigiisa waa lagu qiimeeyaayo. dadka Yurubiyaanka in la joogo qof walba hadduu cilmi sheegto waa loo sharciyeeyaa. waxay dhahdeen qofkaasi bartaas ugu fiican loo kalkiisa wadaaya. calaa ayati xaal dhinacan buu sameeyo afku biyo ka buuxsaday iyadoo kaasuu uu ku shubay ninki. ilaahay markuu ku badbaadinayo ama shimbir ilaahay kuu furayo waa kun fayakun meel buu waxa weeyaan ilaahay kaaga soo wuxuun baa sabab unbaad ku caafimaadaysa. saasuu kalkuwaas waxa weeyaan dacar hala waraabiyo. dacar hala waraabiyo ma qof intaasoo bil ku dhawaad iyo 2 bilood ku dhawaad bukay oo waxa weeyaan dacar waraabinaa waa la iskhilaafka meesha keenay. wadaadka yaa laga horimanin dadkii hore dee waxaa khalaas wadaadka تعالوا واحد كيجا لكن وده كيا لغوري مني واحد علي إني جيت عربي ورابي إلى الجلال وحكي بعدين إنه واحد ويا صغير لبسه إنه سككع إنه طلع صلاة إنه بسم الله إن هذا بل إلهه ناتي لو شيء من كقرية إن قبل دي لده واحد ويا يدا واحد كده بيسي يدا فشيء ولا قدلي ولا سلنا ولا بدليسا وصواص كراسة إن يدي إيه صح يدو ما بحكاه هاي الظروف هو مكيني كرتو هو مسين كرتو عانو ما أودي كرتو وحكست لكن نيجي بعد ودي لو بلوغري مردم به أيا دور قوى صعدا يا مركز دور بتقدم بيسي مقش إنه نيجي شقينا يو إنه كشقيستي إنه نيجي جيت كله كهاي يومك كلا كعي يومك وحوي ما شاء الله نقول واسوا عرفت يبلاي جاري قد يغني صورة مقالة بتشوفت ويكن واسكت بلا إنه أنا بوكا أنا حنوسن أيد وسم الويدي ما هو إنك كعي ولا وسم الوريس جاري وسم يسموني مقالة حالي ما بقى ما ذيك صوت الشلة وأنا حمص مريض مايا سنان عين كان هذه قربت عين كمان كعاوية وحبان كسية عين كساسو هذا يسوي مرة محمود دوني إن لنا عن سفر دول والناجي فكر كده قبل إليك الكار روح كوي دارنية وحام وحبايا إنك لك حلم كوي قبل ننكي سيدي بكرتين iyaduna sidii bay barteedu ugu noqotay ninkiina adduunkii saas ku galay. marka qisadu saas ku dhamaatay. laakiin maxaynu u soo qaadanay dadka maanta iyo dadkii hore qaar baa iska jiray waxa weeyaan wanu fahmay dadka maanta qofka hadduu bukoodo waxaad arkaysaa naajiyo maanta ku dadaalaysa cararaysa mar jaad iibinaysa mar barta ka baxaysa mar alaab iibinaysa mar mukhbad jaraysa mar meeyay iibinaysa mar dukaan yar furanaysa mar milix iibinaysa mar wixii baa isbedelay.
waxa weeyaan waaqicii baa isbedelay. marka waxaan ka hadlaynaa waa waaqicii hore, waxyaalahaas iyo waxyaalo kale oo dhaca oo dhici jiray way jiraan xaqiiqatan. marka waxaa idiin sheegayaa idaacadda waxa weeyaan ha lagu xidhnaado oo waxa weeyaan ha la soo dhawaado oo waxaad qiso haysaan keena. waxaynu ka faa'iidaynaa marka ninkaagu hadduu xanuunsado inaad cidlayn, gabadhaadu hadday xanuunsato inaad cidlayn, ilaa aad ku ogaato labada daarood midow. dhimashadu waa mid ilaahay subxaana wa tacaala qoro, qof walba waa dhimanaya. adduunyada tan qof haraya ma jiro, amba nin noqo amba naan noqo. haddaa cid la daynaya nebi maxamed baa la dayn lahaa calayhi salaatu wasalaam. inagu waxay nahay ummatu maxamed baan nahay calayhi salaatu wasalaam. nabigu calayhi salaatu wasalaam dadku yidhi waxa weeyaan adduunka dadka ugu khayrka badan waa inaga, waa kuwa nebiga arag calayhi salaatu wasalaam, haddana rumaysan oo raacsan dariiqii nebiga, haddana gudbinaya waxa weeyaan balaqu canii walow aaya. aayadna ilaahay ka dhigay waxa weeyaan risaaladii nebiga gudbinaya ummadda u sheegaya. dadkaasaa adduunka ugu khayrka badan. marka waxa weeyaan barnaamijku intaas ku kooban yahay. aadna waa idiin salaamayaa. haddaynu Soomaali lahayna insha allah aynu iscaafino, wanaagga aynu ka talino, gobonimada aynu ka talino, sharafta aynu ka talino, guulaha aynu ka talino, aynu ku dadaalno inaynu isjeclaano. billah calaykum. aad baa idiin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waayo waa bilo idiga soo salaamaya xaggee iyo Palermo, Italia.